horaantii sanadkan ayuu sheegay wasiirka maaliyadda Soomaaliya inaysan ganacsatada waaweyn ee Soomaaliya bixin wax canshuura. runtu sidaa weeyaan hadday 10 canshuur bixiyaa jiraan 20 aan bixin baa jira oo kabaniye waaweyn oo anagu inta halka aan joogay aan gamba bixin ya message-geena fahmaan dalkan qofkii canshuur lagu leeyahay bixi nalana xisaabtan وكان hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sheegaya in ganacsatada Muqdisho siiyaan al-shabaab lacago ay ku sheegeen canshuur. wadogtiin in al-shabaab ay canshuur ka qaadaan container kasta oo dekada yimaada oo xogta aan haynana ay sheegayso inay containerkii 40 feet ahna ka qaadaan $160 kii 20 feet ahna ay ka qaadaan $100. sidoo kale al-shabaab ayaa tuulada al-Mubaarak uga furay goob ay ganacsatada ku diiwaan galiyaan si ay canshuurta meeshaasi ugu bixiyaan. al-shabaab hadda waxay marayaan in meesha la yiraahdo tuulada Mubaarak la yiraahdo qof kasta oo ganacsada wax la soo daga file looga furo registration number la siiyo file halkaas uu ku leeyahay ay hadda ay maraysaa. dhinaca kale waa kuwan ganacsatada oo si wada jira u diidaya canshuurta ay siiyaan dawladda. waxaan ugu baaqaynaa wasaaradda maaliyadda dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed lagana daayo ganacsatada gobolka Banaadir culayska canshuureed ee sida gaarka ah loogu hayo. ma dhicin ganacsatadu meel intay sidan oo kale u soo istaageen inay diideen canshuurta al-shabaab ka qaado. al-shabaab awood ma laha waxaase mar walba garbahooda taagan ganacsatada Soomaaliyeed.